dowladda Ruushku waxa ay sii wadaa gulufkeeda military ee ka dhanka ah Ukraine. Waa maalinkii 14aad oo Putin ay ku qaadatay in uu dagaal ka wado ciidda Ukraine. wali ma jirta la wareegid buuxda oo dalkaasi ah. magaalada caasimadda ee Kyiv-na wali cidda maamulaysa gacan ku haynteeda si weyn ayaa loogu loolamayaa. dhowr dhacdo ayaa isgarab socota. meel xabadda iyo baaruudda ayaa la shaqsiinayaa. meel kalena xabad joojin ayaa ka dhaqan gashay oo qax dadweyne ayaa ka socda. 5 saacadood oo Ruushku ay ku dhawaaqeen in la furayo albaabada dadweynahana loo ogol yahay inay barakacaan oo kaliya ayaa dhaqan gashay. qaxootiga dagaalka ka firxanaya waa ay sii kordhayaan. dadaal diblomaasiyadeed xoog lana waxa uu ka socdaa magaalada Antalya ee loo dalxiisaga ee Turkiga. halkaas oo ay wada hadallo ku yeelan doonaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo dhigiisa dalka Ukraine Dmytro Kuleba. waxayna ka wada hadli doonaan sidii ugu yaraan wax looga qaban lahaa xaaladda culus ee dhanka dagaalka ee taagan. kulanka waxaa soo jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Ankara, waxaana uu ku taliyay in la qabto qaab 3 geesood ah oo haysaga Kuleba iyo Lavrov. laakiin dhammaan dadaalada xoogga leh ee dhinacyadu ay wadaan kulanku waa Brito, waana madasha diblomaasiyadda oo loo qorsheeyay 11 bishan Maarch. si weyn ayaa indhaha loogu hayaa waxa ka soo bixi kara. magaalada Sumy ee dhacda waqooyiga bari ee dalkaas waxa lagu guuleystay ilaa iyo hadda in 5,000 oo qof laga saaro markii ay hakisay Moscow duqeynta halkaasi ay ka waday, ogolaatayna in la furo albaabada diblomaasiyadda iyo kuwa aadanaha. Mareykanku waxa uu qaaday tallaabo ku aadan Poland in lagu siiyo nidaamka difaacaha gantaalaha ee loo yaqaan Patriot. tani waxa ay ka dambeysay markii Poland ay ogolaatay in dhammaan diyaaradaheeda MiG-29 ee Ruushku farsameeyay ay siisay Ukraine. laakiin walwalka weyn waxa ay tahay in Poland ay leedahay diyaaradahan. waxaan ku wareejinaynaa Mareykanka, waxaan ugu geynaynaa saldhiggiisa Jarmalka halkii iyadu ay toos u siin lahayd Ukraine. waana walwal weyn oo Poland ay ka qabto in sidaa fudud la gacanta loogu geliyo xiisadda ka dhaxaysa Ukraine iyo waddanka Ruushka ayana dabku uu soo gaaro oo qabsado. Ruushku wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin kale oo maanta ka dhaqan gashay magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid tahay Kharkiv, Mariupol iyo sidoo kale magaalada Sum si rayidku jidadka ay uga baxaan. agaasimaha sirdoonka Mareykanka ee CIA wuxuu sheegay in ay heleen warar sheegay in madaxweyne Putin uu qorsheynayo in 2 maalmood gudahood uu ku qabsado magaalada Kyiv. dhinaca kalena Georgia, wasiirkii hore ee difaaca oo ay la socdaan xubno kala duwan ayaa Ukraine waxa ay u aadayaan dagaalka si ay qayb uga noqdaan. waa tallaabo kale oo xaaladda uga sii dari karta. dadkuna wali waxa ay u muuqdaan in ay yihiin kuwa ka firxanaya waddankaas. wasaaradda difaaca ee Ruushku waxa ay kala oo tabisay inay heshay qoraal qarsoodiya oo caddaynaya in Kyiv ay qorsheynayso weerar ka dhan ah magaalada bariga Ukraine ee Donbaska oo ay weheliyaan kooxaha goonigosadka ee halkaasi Ruushku taageere ku sugan yihiin. Reuters waxa ay tabisay in wasaaraddu ay daabacday 6 bog oo dukumeenti ah oo caddaynaya in ay Kyiv isku dubariday weerar military oo lagu qaado gobollada fallaagada uu Ruushku taageero ay maamulaan. tani waxa ay ka dhigan tahay in wali ay sii socoto xiisadda Ukraine. dhinacyadu xal diblomaasiyadeed iyo mid bini'aadamnimadana uu sii saqirayo. Yurubna waxaa gaaraya digniino tirabeel oo ku wajahan in la isku diyaariyo wax ka bedel weyn oo dunida oo dhan saameyn ku yeelan doona. ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada? ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka, higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.